maanta oo kale sanad walba 3 May dunida waxay xustaa maalinta xorriyadda saxaafadda. Waxaa la isxasuusiyaa mabaadi'da asaaska u ah xorriyadda hadalka. Sidoo kale waa maalin lagu qiimeeyo heerka xorriyatul qowlka iyadoo la isku baraarujinayo inaan lagu xadgudbin xorriyadda warbaahinta. Maalintan waxaa la xasuustaa lana karaameeyaa dhammaan suxufiyiinta ku nafwaayay iyagoo gudanaya waajibaadkooda saxaafadeed. Si loo xaqiijiyo qodobka 19aad ee baaqa caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha ee soo baxay 1948 waxaa xukuumadaha lagu baraarujinayaa ilaalinta xorriyadda hadalka iyo inaan la dabrin suxufiyiinta. Qarumaha Midoobay ayaa 3 May u aqoonsatay maalinta xorriyadda saxaafadda iyadoo la tixraacayo baaqii caalamiga ah ee soo baxay 1991 ee shirkii guud ee hay'adda UNESCO. Xorriyadda hadalku waa geed weyn oo ay harsanayaan dhammaan howlwadeennada warbaahinta. Ha yeeshee qudhoodu waxaa waajib ku ah ilaalinta anshaxa saxaafadda. Xorriyaddaadu waxay ku eg tahay halka ay ka bilaabato xorriyadda qofka kale.